قدوميها حسبك أوعد فيصل علي ورابه وحيده وين فشلني دولتنا مدد ودي كرم منهن دولتنا ودي كرم مينو حمر نواتها صعطي إننا ما أنت وين يسكسو هرشدنا عيد نقول لبنتتين إنه أبا هنهي وحي إنه أبا هنهي إلى إنه Soomaaliya mar labaad ku noqono oo aynu la yeelano wax la yiraahdo federation inaynu mar labaad la yeelano miyaad u malaynaysan 12 nin baanu nahay markaanu halka fadhino cali waran cadda wuu fadhiyaa cali wuu fadhiyaa madaxweynuhu wuu fadhiyaa axmed cabdidaara wuu fadhiyaa anugu waan fadhiyaa janaka taliyaha biliisku wuu fadhiyaa taliyaha ciidanka qaranku wuu fadhiyaa wasiirka diinta iyo awqaaftu wuu fadhiyaa 8 baanu nahay ayaguna waa 5 waa Faysal waa Ciro waa Xirsi waa Cabdulaahi Cukuse waa xildhibaan baarlamaanka Koodbuur 13 qof baanu nahay miyay madal marxaatigeedu qarsoomi kari laayahay horta hanala yaabin markaan aad arkaysaan xinifiyo sheekhi Cabdilcasiis oo aad u qaylinaya dadka nula macaamilna waa dadka federaalka xamar ku socda waxaan idin leenahay markaa xusbiyadii arrimahan maxaan ku dhahday aynu ka kacayno ka hadlayno maadaama aragtida noocaasi jirto arrinta ugu badan ee maanta axsaabta mucaaridkii ka hadlayaan waxa weeye inuu dalku galo khalkhal qaanuuni aynu galo constitutional crisis in dalka lagu abuuro oo marka crisis ka la abuuro dabadeedna ay noqoto Charles Laada meeshii waxba noqon weyday xamar baa raja ka jirtay aynu xamar tago arrinkan aynu ka hadlaynaa marka waxa weeye jawaabteedii nagaga mudnayd waanu niri laakiin waxa hadda xisbiga kulmiye ku adag inaanu la macaamilo oo wada hadal la yeelano nin xamar u socda iyo nin Somaliland isaamustirmiyay meel la ku heshiin karaan dadweynaha reer Somaliland waxaanu sheegaynaa xusbiyadii ururadii siyaasiga ah waa la furayaa waxa aan leenahay ururo siyaasi ah oo mudakara oo idin ilaalin kara oo qarannimadiina Somaliland ilaalinaya maxaan ku dhahdaayay ka doorta ururada dambe ee furmaya waxa kale oo arrintan ku jirta oo hadda ay intii dhaweyto markaanu sinimi hurtad madaxweynaha lagula soo hadlay oo ay bandhigeen oo qoraal la ku jeediyeen oo international community-ga bulshada adduunka qolyaha inoo yimaada diirka cad leh ay mar walba ku yiraahdaan reer Somaliland waanu ishaysanaa dagaal baa dhacaya waanu isdilaynaa hanala soo kala gaadho bulshadiina dadka shicibka ah meel walba ka yimi meel dagaal ka socda miyaa garanaysaan inaku reer kulmiye cid aynu ishaysano miyaad garanaysaan annakuna madax baanu idin nahayo cidna isma haysano cidna colma nihine waxa qore aynu doonaynaa inaynu ku soconno xeerarka la sameynaya waa kuwa xeer number 14 waa kaabista madaxweynuhu imika uu u qoray ee baarlamaanka hortaala waa taa baarlamaanka qarankana waxa hor yaala ee imika daruuriga maanta waxa weeye in xeerkaasi degdeg loo baas gareeyo xeerkaasi dabadeedna uu amalgal u noqdo xeerkaasi dabadeedna u shaqeeyo arrintii hadda uu ka hadlayay Cabdilcasiis
doorkii hore 2 sannadood bay qaadatay oo ay ku luntay arrintii murankii ay ka keeneen komishanka doorashooyinka kan dambe imika markii la magacaabayna sanad iyo googoobay waxay lahaayeen in riyo raaxa la bedelo maantana waxay odhan doonaan ma garanayno kulmiye wuxuu taagan yahay diyaar wuxuu yahay isagoo raacaya xeerarka qaranka kulmiye isagoo raacaya dastuurka qaranka doorashada imika ay ku qarwayaan ee ay ka hadlayaan ee madaxtooyada 6 bilood baa ka hadhay doorashadii tan ka horeysay ee xisbiga kulmiye qabtay ee 2 sannadood iyagu ay cuneen waa doorashadii ugu badnayd oo ay inoo timi tiro ku dhow ilaa 120 goob jooge oo international ah oo dhowr iyo 10 ka mid yihiin ay dawladaha Yurub ka socdaan oo safiir ay yihiin waxa ay qireen in ay tahay doorashadii ugu fiicnayd ama ay noqonayso doorashooyinka ugu fiican ee qaaradda Afrika geeska Afrikana doorashadii ugu fiicnayd ay tahay xisbiga kulmiye qabtay madaxweynaha halkan ku fadhiya iyo xukuumadda uu madaxda ka yahay baana qabtay maantana waxay diyaar loo yahay in doorashada la qabto mid muddo kale aynu qabanno kulmiye aan lagu xamanin uu gacan maroojiyey sidii kuwii hore xisbiyada markaa waxaan leenahay walaalayaal arrimaha siyaasiga ah dhaqan bay ahayd Somaliland inay mar walba ka wada hadlaan waa idinka federaalka ka hadlaayee haddaad doonaysaan inaan annaka imikana maanta way naga go'anta in la wada hadlo laakiin waa inay ku soo noqdaan xayndaabka qarannimada Somaliland oo in badan ka fog wax la yiraahdo federaal iyo in koonfur la isku noqdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin